السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصحاب تقصود وهذا جنرال فائزز وورلد. آدي دين سلامايا وحرجينا دمانتين أنا وضنا بتقبتين سود وهذا أصحابتي دقالقة ما أنتو حنا سمينا يا أصحاب تعبتان بايوتين أو تيمه اللو عباية أو طبيعي يعني بايوتين أو هرو حدين سوق بصدي حبوب أما كنيني أو لو عباية تيمها إي سكين كإي عجيها ما أنتو حنو هايا cabitaan biotin dabiici oo timaha u cabayno timaha iyo skinka iyo cijiyahaba aad u qurxinayo timaha dheereynayo oo badinayo oo ka helayna timo caafimaad leh oo qurux badan oo si oo degdeg ku dheeraanayaan sidoo kale skinka aad noogu qurxinayo cijiyaha qafiifka cijiyaha hadii ay jajabayaan cabitaan waxa waaye qurxinta loo cabo oo fitamiinaad badan leh oo timaha iyo skinka iyo cijiyahaba u cabayno waxaa ka buuxa cabitaankanitood fitamiinka B iyo C iyo calcium sidoo kale wuxuu leeyahay xadiid omega 3 ku jiro maasha Allah tabaaraka Allah cabitaankan hadii si toos loo cabo waxa waa skinkaaga timahaaga cijiyahaaga caafimaadkaaga gudaha iyo banaankaba iyo quruxdaada waa cajabaysin insha Allah hadii si toos loo cabo marka waxaad leeyahay asxaabta soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin videoga like dhaha like tan hilmaamina insha Allah like ta muhiim ay noo tahay share gareey gabdhaha asxaabtiin u share gareeya haddii anugu cusub tahay marka ugu horeysa aan soo booqatane ahlan wa sahlan waan kusoo dhaweynayaa janalkaaga waaye janalka subscribe dheh gambaleelkana furo si fiidiyoyaasha cusub oon soo gelino si toos ah u aragtid oo si toos ay kugu soo dhacaan insha Allah aad iyo aadan wada mahadsantihiin dhammaantiin soo dhawaad marka asxaabteeda qaaliga ah looskan isticmaalina asxaabta looskan waxa waaye looska oo almanka oo balbalaarka waaye marka looskan waxaan sameynaynaa biyan ku qasaynaa qof karabana waxa way sidii soo isticmaal karaa laakiin ani waxaan jeclahay biyo inaan ku qaso oo qofka aan ka fiiqo wax yar aan ka qasaynaa biyo caadi aan ku qasaynaa marka biyaha kuleel ma aha biyo caadi waaye adiga wuxuu noo qasnaanayaa ilaa iyo rubac saac ama ilaa iyo 10 daqiiqo meelahaas oo noo qasnaanayaa markii uu jilco ka bacdina looska waa fiiqaynaa markii aan fiiqno aan si toos u isticmaalnaa markaas insha Allah marka looska waxa uu sugeynaa ilaa iyo rubac saac meelahaas ama 10 daqiiqo intuu jilco ku soo noqonayo looska waa kasoo noqosan yahay waxaa kaloo qasanaynaa boorashna isticmaalaynaa muhiim waa boorashkana isticmaalno cabitaankeena aan ku darsano boorashkana asna wuxuu noo qasnaanayaa wax yar shay 5 daqiiqo meelahaas oo noo qasnaanaya insha Allah marka looska iyo boorashka wax yar aan qasaynaa inta kale laakiin caadi oo isticmaalaynaa insha Allah bas way hadana bilaabanayna asxaabta cabitaankeena waa isku darsanaynaa waa shiidanaynaa marka hore qalaadada waxaan ku soo shubanaynaa moos hal xabo moos oo soo jarjarno way oo weyn mooska marka asxaabta fitamiinaad badan uu leeyahay fitamiinaadka ku jiro timaha aad u bixiya timaha waa dheereeyaa hadii maaska ahaan loo isticmaalo iyo hadii la cunabo maasha Allah timaha aad u kaaga saacidayaa mooska marka waxaan ku soo darsanaa hal xabo moos oo soo jarjarnay waxaa kaloo ku soo darsanaynaa looski oo hore aan u soo qasanay oo qabka aan ka soo fiiqnay looska asagana maasha Allah fitamiinaad badan uu leeyahay sida fitamiinka B iyo A iyo E wuxuu kaloo leeyahay duhun saxiix oo timaha aad ugu fiican sidoo kale skinka u fiican waxa waaye saliid oo dabiici oo caafimaadka u fiican uu leeyahay timahana si degdeg ku bixiya oo dheereeya looska maasha Allah hadii maaska loo dhigto dabcan iyo hadii la cunabo maasha Allah tabarakallah aad iyo aad u kaaga saacidaya skinka iyo timahaba sidoo kale cijiyaha maasha Allah tabarakallah waxaa kaloo isticmaalana timir 5 xabo oo timir dabcan lafta ka soo bixinay 5 xabo oo timir waaye timirta idina fitamiinaad badan ay leedahay waxaa ka buuxa xadiid dhiigay soo celisaa waxay u fiican tahay timaha go'aayo qofka markuu dhiiga uu ku yar yahay dabcan dhiig la'aanta ay hayso oo xadiidka uu ka maqan yahay timaha way ka go'aan timirta waxay ka saacidaysaa in dhiiga ay ku soo celiso laano xadiid badan ay leedahay idina aham shay waa u baahanahay aad ugu baahanahay timirta waxaa kale u baahanahay boorash qiyaastii nus bakeeri boorashka marka waxaa sameeyay biyo kuleel aan ku qasnay adii wax yar oo noo qasnay asagana ilaa iyo 5 daqiiqo meelahaas 5 daqiiqo meelahaas oo noo qasnay boorashkana u baahanahay muhiim waa asagana waxaa kale u baahanahay chia seed ka asagana muhiim jiddan uu yahay laano wax waa fitamiinaad badan uu leeyahay sida fitamiinka C calcium uu leeyahay xadiid uu leeyahay omega 3 uu leeyahay sidoo kale antioxidant waaye maasha Allah tabarakallah timaha waa bixinaya waa dheereynaya sidoo kale waa badinaya chia seeds kana asxaabta maasha Allah muhiim uu yahay waxaa kaloo soo darsanaynaa sisin qiyaastii 2 qaado oo sisin sisinta iyadana asxaabta qaleelka timaha ka ilaalisa iyo go'itaanka way badinaysaa way dheereynaysaa maasha Allah waxay leedahay iyadana saliid caafimaadka u fiican duhun oo saxiix ay leedahay maasha Allah tabarakallah aad iyo aad ay muhiim u tahay iyadana sisinta
waxaa kaloo kusoo darsanaynaa looska shiidan, looskeena caadiga ah waaye oo shiidan oo hal qaado ah. looskana asxaabta mufiid way asagana aad iyo aad u mufiid ugu yahay skinka iyo timaha yani jirka oo dhan maasha allah. asna wuxuu leeyahay saliid oo saxi ah oo caafimaadka u fiican, timaha aad u qurxiyaa, salka hoos uu kasoo qoynayaa timaha, qaleelka uu ka ilaalinaya, sidoo kale skinka maqaarka aad iyo aad ugu fiican yahay jirka iyo wejigaba. haddan waxaa ugu dambeyn kusoo darsanaynaa caano, 3 bakeeri oo caano ah. haddii aad rabtiin 2 bakeeri ka dhigi kartiin, haddii yani kaliga aad tahay 1 bakeeri waa sameysan kartaa, yani waxaa la rabaa inaad u qiyaastid le. yani anaka hadda 3 bakeeri oo caano aan isticmaalna ku shubanay. alaabta kale aan ku darsanayna waxa waaye qiyaasay rabtaa, yani idinka u qiyaasta. chia seedka oo kale haddii aan helaynina waxaa ku bedelan kartiin flaxseedka ku bedelan kartiin, isticmaali kartiin bas. laakiin flaxseedka wax badan ma lagu darsanaayo, qaadada yarista ah nuskeeda camal lagu daraaya markaas insha allah. haddii yani 1 bakeeri isticmaalaysidna wax yar u isticmaalaysaa flaxseedka, iska badinaysid. marka hore waa soo tumaysaa, markii aad soo tuntid kadib markaas isticmaalaysaa, ku shiidanaysaa markaas flaxseedka insha allah, ama qoondar ama saliid, marka nin walba sida u yaqaano waaye insha allah. haddana waa shiidanaynaa, si fiican u shiidaynaa, laazim si fiican inaa u shiidana waayo si uu noogu noqdo smoothie naacim ah oo kaal iska arag ah. haddii la rabo malab aa ku darsan kartiin, laakiin sokor ma fiicna in lagu darsado. malabka maasha allah haddii malab uu ku yaalo ku darso, haddii kale sokor in lagu darsado ma aha, sokor ma loo baahno laino timir aan ku darsanay. haddii aad rabtiin macaan badan, timirta hadda anaka meeshaan 5 xabo uga darsanay, 7 xabo ku darsan kartiin, ama 11 xabo. sokor haddii lagu daro fawaa'idka badan oo ku jiro oon ka helayna, yani ma ka helayna markaas, yani fawaa'idka waa yaraanaya. marka waxaa fiican in malab lagu darsado ama timirta loo ziyaadiyo, oo timirta yani meeshay 5 xabo ka tahay 7 xabo 11 xabo camal lagu darsado. haddana khalaas waa markaan asxaabta smoothiegeena diyaar uu noo yahay maasha allah, si fiican aan u shiidnay. bakeeriyaashaan usoo diyaarsan ku shubanaynaa. maasha allah wuxuu kusoo baxay smoothie culus oo naacim ah oo kaal iska arag ah, si fiican usoo shiidnay. diyaar uu noo yahay markaan, saanu diyaar noogu yahay. smoothie waxa waaye u dhigmo xabuubka ama kaniiniga oo biotinka. maasha allah tabaaraka allah asxaabta, haddii saan loo sameysto yani kaniinigaas maba loo baahnabo, si waxaa u qaadanaynaa oo dabiici ah, yani kaniiniga waa uga maarmaynaa insha allah. alaab dabiici ah waaye oo aad loogu qurux badnaanayo timaha, skinka, cijiyaha, caafimaadka gudaha iyo banaankaba aad ugu fiican oo maasha allah ah. waxaa idin leeyahay soo tijaabiya, roobeeya. waxaan la cabayaa subaxdii aad ugu fiican yahay in yani oo quraac ahaan loo qaato. maasha allah tabaaraka allah, 1 bakeeri haddii aad subaxdii cabtid waa kugu filan yahay. haddii laakiin aad rabtid galabtii inaa cabtid, haddii caata aad tahay, yani gabdhaha miisaankooda hoose aad u anfacaya, galabtina waa cabi karaan. laakiin haddii miisaankaaga caadi uu yahay, 1 bakeeri oo subaxdii aad cabtid waa kugu filnaanaya markaas insha allah. aad iyo aadaan u mahadsantihiin, aadaan kaga mahadcelinayaa daawashadiina quruxda badan ila socodkiina. videoga like dhaha, like tilmaamina insha allah, like taa ka tagina, share gareeyana gabdhaha asxaabtiina u share gareeya. haddii anugu cusub tahayna waa kusoo dhaweynayaa, janalka subscribe ka taabo, gambaleelkana furo. isla socod wanaagsan insha allah. aad iyo aad u mahadsantihiin, insha allah waxaan balan ee videoga dambe. waxaan idinkaga tagayaa khayr badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.